waxaan idin sheegay saddex arrimood oo aniga shakhsiyan aan kala kulmay kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala todobada qodob baan kaga baxay marka afartaas waa ay halka saddex baa ay keentay ul gaalan joogi jiray masaajid baa ayaan fadhiyi jiray masaajidka daris waxa la ah islaan gaalada ah oo daa 70 jir kor u dhaaftay masaajidka daris la ah islaam baa masaajidkii soo qaracday wadaadadii bay u timid waxay tiri heesaha masaajidkan ka baxa in la yuduuban doonayaan wadaadadii baa soo eegay waxaan ku tukanaa meesha heesaha islaamtu ay sheegayso wadaadadii baa dib u kala shakiyay araba ka masaajidka xidhnaa aad wax sabaysaa may islaantii baa leeyahay waa la waraysto haji maxaa dhacay baa leeyahay maxaa markaasay tiri xilliga saacadii bay sheegaysaa salaat al-fajrigi salaadii maghribka salaadii cishaha saddex jeer meeshan waxa ka baxay hees macaan baa ka baxday ii duuba bay tiri daaqada intaan soo istaago ayaan dhageystaa bay tiri waan ku qaboobaa bay tiri wax ma akhrido muslimad maaha af carabi ma taqaano warka shaqo kuma leh suwam finish bay ku hadlaysaa diskunta suwam allah isag shaqo kuma lafkiina hada markaasaan ogaanay xaajiyadu wadaadu maxay doonaysaa wadaadu in quraan doon tahay baan ogaanay markaasaan wariya ugu cud macaana rag wax akhrinay markaasay basaarideeda Abdul Basit qoloyin kale Marookaan yiraahdeen mid xaqooda ka akhriya Suudaanid yiraahdeen mid xaqooda ka akhriya wadaad Soomaaliya caashiq Cabdirashiid al Suufi loo duubay markaasaan ku gaadha Soomaaliya Sheekh Cabdirashiid loo duubo cajeedir baan u duubno saantii loo geeyay iyadu maxay u haysataa maxay iska dhageysataa laba saddex sanaa maray soo maray xaajiyadii wadaadii inta masaajidkii timid ay ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasuulullah ku dhawaaq هذه مرخاتب أنا وأنجوب جوجوها صور عظمها كانوا وادي هايسا كلبا شركة اللبات مثل هذا بعيد من لكن اللبات نعكوش سنا إسلام أيام مساجد كالباب دي سنتي سو استاكتي أي المية ريسور الشيء المية رش أنتو بتجير كيرا أي مساجد سو جلسة بتر أرض أطغى صو مسلم كيرا بالله يكينا وإن يروش أنتو بتجير كيرا إسلام بندون إن النقود كسان سير كم الله والله صادر يوا وحورن دون العيال في بكاء وصنا ياي رواد يرتاح الوقت جديد تبجير لما قف كل مسلم ما هبد عين هذا هوستنا واحد كيل على النساء دقيقتي كنا يانو كاب الحين بعد ذلك وحاصل سي الله لا سي أديش كسان أو والدك أو بالوالدك أو هو يدي بقى الباب كده بدي جوك تبيت ويا الباب كله هو يده حجاب يبي صاحرت ساعد كيف يسوقش إنك وركي سواء حياة أو رايدة هذيك محاكو هلاي باكوف هذيك لفظة تصوب غير هوش waxay tiri dhageyso quraankiino dhan afinish baan ku akhriyay quraanku waa tarjumnaa afinish baan ku tarjumay alxamdulillah rabbil alamin waan akhriyay hal arrin baa ajabisay bay waxaan doonayaa inaan kaygu sida idinka oo kala caruurtiina markaan weynaado anigu indhaada noqdo guriyaha dadka waaweyn inaanu igu tuurine saab idinku hooyooyinkiina aabayaashin u haysaan inuu ii hayaan doonayaaye ha muslimo يدنا هالكاس وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أي حاجة داس وداد داسي إسلام كي تقارب أنا مرقبان واحد شكرا صدق هذا كجب حياة وحوي يوكا موريتانيا انتجي شيخ محمد إسماعيل وكتاب القرآن كيدور لمي يا مفسرين شيخ محمد صوفي وهالكم فرديا أيام ربا يدنا إن تبشير يا بشارة يدنا إن يقول نقط موريتانيا انت ومليون دولار هالكاجي لحد بلود بان سور فردي وداد بان هوس فرديستي حديث كي رايه جبريل محمد وي صلى الله عليه وسلم وحيته ما الاسلام وما الايمان ايا لحدود لا يسو دغي هرجيسه markaan mid waxaan yiri war hal xadiis waa Mauritania kala mid kale gareeyst nin baa la sheegay sheekha konton sano tafsiir masaajidka akhrinay 50 caam imikana boqol kor u dhaafay sheekha culimada iga sheekeeyeen markaa waxay yiraahdeen odaygaasi waxay yiraahdeen sheekhaasi konton sano kitaabka Ilaahay fasirayay masaajid kaamiga ku yaalo kitaabka Ilaahay ku dhigay imika odaygii waa gaboobay murqihii baa dabcay maro dhulka taalu noqonaya isku dhacaya waa isku dumaya mar allaala marka la aqimo salaada laba uu dhalay laba caruur uu dhalo ag jooga ayaa intay garbaha qabtaan odayga
ayay salaada u quminayaan markuu salaada xidho sheekhaasi Allahu akbar markuu yiraahdo ninkii cadka ahaa ma nuuxsanayo ilaa salaamu calaykum yiraahdo markaas ku anigu sheekha ilaa la ii geeyo soo arko safar dheer baan galnay sheekhiyo waxaan u tagay cad ah oo dhul fadhiya oo dhaqdhaqaaqaynin 50 caamana mufassir ah mar allaala marka salaada la aqimo qad qaamati salaa ayu laba ay dhaleen laba u dhalay hareeraha ay qabanayaan mar allaala markuu safka ma tukinayo isagu ma duula tukanaya mar allaala markuu safka Allahu akbar salaada xidho waxaad moodaa si dadka kale xubin dhaqdhaqaaqa saamxaytu kuma jirto markuu salaama naqsaday salaamu calaykum salaamna halkiiba ku dhaco waa la qaadaya labadii inamood baan ku wari war xaalkiisa iga warrama aabahay wuxuu nagu yiri buu yiri kitaabka ilaahay buu ilaahay igu xafiday buu kitaabka aan kontonka sano dhigayay ayuu ilaahay xubnaha igu xafido maskaxdaydu way zuushaa buu yiri oo maankaygu wuu baxaa ilaa xilliga salaada mooyaan ilaahay quraanka inagu anfaco ilaahay quraanka kii wixii uu bedelay ilaahay subxaanahu wa ta'ala hay nooga dhigo masaajidka sheekhi dhisa Allah u naxariisayo ubadkiisiiba isagana Allah barakayo ubadkana Allah barakayo masaajidka aniga si gaar ah fadli igu leeyahay 5 sanaan halka joogay sheekh Xasan Cabdisalaam barakallahu fi umrihi wa fi amwalihi wa fi awladihi isna waa u ducaynaya maanta ma arka haye marka sheekh maxamed halka uu sii wado isku bahbaa halka waan ka dhadhawaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh